بسم الله الرحمن الرحيم شركة شرايد يعني ما أنت قبلنا إنه وحن دوننا هنا نكجا هذا الله لبا قضب هنا إنه الشعب رئيس سوماليلاند تاجرياش حسب وعد بوجو باقنو سيد كارك الله قادن لها قضب كلا بعضنا هنا إنه هالكم فرين ودرنا كمشين كدروشين كقرنك كمشين كدروشين كقرنك iyo axsaabta qaranku waxay kala saxeexdeen xeer la yiraahdo xeerka habdhaqanka xisbiyada siyaasadda ee kaar qaybinta codbixiyaasha ayay dhawaan kala saxeexdeen abriil bay kala saxeexdeen xeerkaasi wuxuu axsaabta waxna uu ka reebayaa waxna uu ogolaanayaa haddaba intii imaka kaar qaybintu labadii gobol hore ka dhacday iyo kuwan imaka ay ka bilaabmaysaba labada xisbiye kale waxa ay jabiyeen xeerkaasi si bareer u jabiyeen kumishikuna uu daawanaya kumishika waxa noo jooga niman task force la yiraahdo laba nina ayaa noo jooga labada nin dacwadeeda waan u gudbinay iyaguna way u gudbiyeen kumishinka si oorala ilaa imikana waxba kamay qaban maanta waxaanu ka qayb galay daahfurka kaar qaybinta codbixiyaasha labada gobol ee tog dheer iyo maroodi jeex markii aanu ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxa uu mikrofoonka ka sheegay in kumishinku arrintaa ay wax ka qabtaan labada xisbi ee astaamaha la soo baxaya ee musharaxnimada ku ololeynaya xeerka qodobo badan bay jabinayaan wax ka qabtaan waxaanu dhageysanay khudbadiisii gudoomiyuhu kamu jawaabay haddaba waxaanu ugu dambeyntii halkan maanta ka dareynaa باق horta waxaan u sheegaynaa komishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaan gudida anshaxa inaanu kalsoonidii kala noqonayno 3 cisho ama 4 cisho gudahood hadii ay tallaabo cad ka soo saari waayaan shacbiga reer Soomaaliland marxaati hanoo noqdo gudida anshaxu ucud ahaan waxaan leenahay waxba way ka qaban kari waayeen dacwadana haduu ilaahay iyadoo qoraalana sabtida haduu ilaahay way ka gudbaysaa xisbiga ucid waxaan shacbiga u cadeynaya laba qodob bay jabiyeen nimankaas labada qodob ee ay jabiyeen waxa weeye qodobka 7aad farqadiisa 13aad iyo qodobka 7aad farqadiisa 14aad labadaaba way jabiyeen oo oranaya xisbiyada qaranka waxa ka reeban inay dhajiyaan laamiyada ku dhajiyaan boorar ama astaamo muujinaya sawirro iyo inay qaataan astaamo muujinaya xisbinimadooda way jabiyeen waxaan leenahay komishinka si cad bay u jabiyeen haddaba ka xisbi ahaan waxaan hore komishinka u ogeydeenoo shacbiga reer Soomaaliland u daawanayay inaanu dacwad maayaraa u gudbinay oo ay iska dhagatireen inaanu tii hore u gudbinay oo ay iska dhagatireen haddaba calaamatu su'aal waxaanu saaraynaa komishinka doorashooyinka qaranka haddii arrintaas si degdeg ah iyaga iyo gudidooda anshaxay ay magacaabeen hadday arrintaa waxba ka qaban waayaan doorashana inaanay waxba kala saari karin ninka maanta golo deegaan inay yaro golo deegaan ka soo baxay oran kari way waa jabisay sharcigi ee ka kugu soo xigaa iska leh u banee booska ee yiri maxkamadda geeya ee aan ugu dul qaadanay ee la yiri war xisbiyadu astaamii waxaan noo qortayna halkan saddexda gudoomiye ka saxeexdeen way jabiyeen wax ka qabta ee waxba ka qaban waayay ee ilaa imaka iska dhagatiraya de macnaheedu waxa weeye uu baqaya hadhowna nin baqaya de waxba ma qaban karo nin baqaya ma oran karo de Muuse wadacday iskeeg Cabdiraxmaan wadacday iskeeg ma oran karo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay mar walba si bareer inay u jabiyaan xisaabta kale heshiiska aanu gallo waa kuwa qodobada komishinka qoray marxaati nooga ahaa nala saxeexay ilaa imikana wax laga qabtay ma jiro aad iyo aad baan uga xunnahay iyadoo doorashaba la isla gelin aan la isla gelin oo aan campaign la gelin in shuruucdii aanu dhiganay si toos loo jabinay shacbiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay haddii sidan campaign noogu soo galo sidan hadduu campaign noogu soo galo waxaan u maleynayaa inaan doorasho isla gaarin hadday sidan ku sii socoto
xalay burco way waalatay lama kala seexan xalay cid seexatay xalay burco ma jir waa kaambeynka xisaabta sameynayaan komishinkuna hebelow joog ma oran karayaan waynu arkaynaa waxaan leenahay haddii si degdeg arrinta looga soo jawaabi waayo xisbiga uu cid shir buu isaga imanaya hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhaweynayaa xogayagu